Sultan Wabar iyo Dabeeco oo si kulul uga hadlay arrinta ka taagan goobaha oo dawladda Soomaaliland ay rabto inay ka mid noqdaan gobolada Maroodijeex isla markaana laga maamulo gobolada hoos yimaada magaalada lagu hayo gobolka Maroodijeex. Sultan Wabar ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga gadaanto xukuumadda Soomaaliland dhinacna la isku maro. waagan aan baxayay iska daalub hayay awda loo dhanbaa mijuhu soo jeeday dhammaantiin mijaha aynu soo jeeday runtii anigii iyo raggii kale aan baxaynay oon idin lahay war naga daba yimaada hadal wuu dhammaaday. runta haddii la eego nimankani niman ma aha nimanka aan garab deganahay jaarkaaga lama doonto ilaahay baa kuu doore niman lala xisaabtami kara maaha. Sultaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dawladda Soomaaliland uu hogaaminayo madaxweyne Silaayo inay wado dhulboob siyaasadeed. nin waalan lalama xisaabtami karo waa waalan yahay waa la qabsadaayo waa la xidhxidhaa inay nimankahay miyir aanay qabin dadka beeshaa hogaamiya oonu malaynaya intooda kalena inay la midun tahay hadday dhaqan tahay hadday siyaasad tahayba waayada dambe oo dhan waxaad arkayseen Puntland annagaale inay yidhaahdeen haafkeen oo number 1 sool iyo sanaag iyo annaka iska wadale wixii dad iyo dunyo jooga dhulboobna ilaa Kalshaale ay ku qaadeen. muqdisho lama ladi kara inay yidhaahdeen waxaa bugiya bacda haya oo waagay muqdisho rogmato ilaa Kismaayo baan anaguna jannada galaynaayo lana ictiraafi inay yidhaahdeen waad ogtihiin. waxaad ogeydeen inay yidhaahdeen annakaalahoo balalaan weeyaan meesha la yidhaahdo maxay ahayd gaashaamo ee Itoobiya ku taalla ismaamulka Soomaalida kelilka shanaad ku taalla dhammaantood inay yidhaahdeen annakaale gaashaamo waaba ku shahiideynaa kuwii wadaadada ahna ay yidhaahdeen kuwii dhaqankuna ay yidhaahdeen saasoo kale kii boorama joogay ee barasaabkuna uu saasoo kale yidhi ummad ilaa ka u hooseeya ka u sarreeyay maalin kuna ay dagaal caadifadeed wada qaadayaan ma fayooba. kaatu mar labaadka waxaan ka hadlayaa laba qodob oo gaagaaban. qodob waa qolada muslim dhibowga ah ee Soomaali dhibowga ah ee loo yaqaano saddexda ummadda muslimka ay ka xishooto ku talax tagay weyn ee SNM loo yaqaano maamulku sheegaa waa koox hubaysan nabadiida muslim dhibowga saddexday waa saddexdii waa dhac waa dhagar waa dhibta Soomaali iyo dhulbo waa hadday dhici iyo dhagartii iyo dhibtii ay Soomaali ku hayeen waa la arkay umana shaqaynaysa hadday dee muddo 30 sano ku caana cabeen uma shaqaynayso. laba erayo kan waxaan oranayaa intaa waxaan leeyahay qorda SNM leeyahay waar waxbaha isku dhaarin haddaad maanta loo hayo doonayso waxbaha isku dhaarin ma leh waxaan isku iimanaynaa geed diib la Hargeysa isku iimanaa Burcaan isku iimanaa iyada taa waa foto loo hayo ama foto ma arkadi haddaad sheekh leedahay sheekh waan leeyahay haddaad ciidan leedahay ciidan waan leeyahay haddaad dhalinyar leedahay dhalinyar waan leeyahay dee haddaad nabadii yareedan anu ku nabayo igu mooday dee inaad iga sarreyso war waaba la isbaran. dawladda Soomaaliland ayaan wali go'aan rasmi ah ka gaarin arrinta goobaha oo iyadu lafdhun gashay ku noqotay dawladda Soomaaliland. dadka ku dhaqan magaalada Boorama ayaa dareeno kala duwan ka bixinaya arrinta goobaha oo dadku u dhagraarayaan halka ay ku dambeyn doonto arrintaasi. hadalka Sultan Wabar ayaa ku soo beegmaya xilli goobaha muranku ka taagan yahay lagu dhaawacay mid ka mid ah dadka deegaankaasi sida dad goobjooga sheegeen waxa falkaasi geystay ciidamada dawladda Soomaaliland ee ku sugan goobahaasi. waa Maxamed Axmed Muuse, Raya TV, magaalada Boorama.